مسؤوليinta saddexda xisbi qaran oo ay kamid ahaayeen hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga xaakimka talada haya ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere iyo xogaye ku-xigeenka xisbiga Wacid Cabdi Naasir Yuusuf Qadax ayaa maanta waxay kulan albaabada u xiran yihiin la qaateen shirgudoonka golaha guurtida Soomaaliland oo garwadeen ka yahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida ahna kusimaha gudoomiyaha golaha guurtida Mudane Saciid Jaamac Cali kulankani oo saacado kooban qaatay markii uu soo idlaaday warfidiyeenka waxa uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye waxa inagu soo foolay doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waxaanu ugu nimi arrimaha la xiriira doorashada iyo sida uu dhici lahayd iyo waxyaabahaas aanu ka wada hadlaynay iyo nabadgelyadeeda iyo waxyaabaha sidii loo sugu lahaa waxa ku xeeran doorashooyinka intaas aanu ka wada hadlaynay dhankooda mas'uuliyiinta ka socday saddexda xisbi qaran kulmiye wadani iyo Wacid ayaa waxay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dagaalku ku dhexmaray deegaanka Dabardalool ee ka tirsan degmada Xudun ee gobolka Sool waxaana ugu baaqeen in ay nabad qaataan isla markaasina dagaalka joojiyaan hadaladoodina waxa kamid ahaa dhibaatadii gaadhay dhibaato inoogu wada filan dhibta halka lagu joojiyo aqligu ha shaqeeyo nabadda iyo wanaaga laga shaqeeyo waxaanu baaqa u direynaa dadka muxsiniinta iyo dadka wanaagsan iyo dadka odayaasha iyo dadka samaha ka taliya waxaanu leenahay samaha ka taliya aqligu ha shaqeeyo yaanay sii soconin colaada hal la joojiyo colaad waxba ma ku dhiso colaad Soomaali halkay gaarsiisay waa ogtihiin iyo waqtiga dheer ay ku soo jirtay dagaal waa garan karaysaan maanta way arag baynu u nahay dhibaato marka waxaan leenahay dhibtu inta maanta dhacday ku koobnaato wixii dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha naxariisto Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wixii dhaawacmayna Allah ha shaafiyo dhibtana halka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga wada joojiyo sidoo kale waxaanu reer Soomaaliland haday tahay dawlad haday tahay xisbiyo haday tahay madax dhaqameed haday tahay mas'uuliyiinta kale iyo ganacsatada iyo dadka xildhibo waxaanu leenahay aanu wada kacno aanu gurmano aan hawsha sidii aynu wax uga qaban lahayn u damin lahayn gacmaha isu qabsan lahayn aan ka shaqeyn oo maatinti wuxuu ahaayay dagaalka iyo colaadda joojiya halkan waxaan fariin adag u direynaa xukuumadda oo ah mas'uuliyadda cidda koowaad ee ka saaran tahay amni guud ee dalka waxa leenahay ciddii amni wadda amba muxuu ahaayay colaadda karinaysa tallaabo adag ka qaada oo ciidanka qaranku runtii uu soo gurmadashayna nabadda waxbu ka qaatay maantana waxaan leenahay tallaabo adag ka qaata xukuumaddana waxaan ku baaqaynaa oo kale dadkii dhaawacmay iyaguna inay runtii si daryeel fiican ay u helaan dagaalka joojiya ilaahay ka yaaba waa bil Ramadaan dad walaalaa ehel maalintii la dagaalami lahaa maaha maanta dagaalka wiilun baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho wixii naga soo qabsaday dagaal sokeeyo waynu garanaynaa sokeeyaa tihiin ilaahay wixii dhintay ha u naxariisto dagaalka inta ku joojiya golaha guurta Soomaaliland waxa ku hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo ah gudoomiyaha gudoosaadka arrimaha dibadda isla markaasina waxa uu isna ka warbixiyay waxyaabaha ay ugu yimaadeen mas'uuliyiintan ugu sarsareeya saddexda xisbi qaran hadaladiisina waxa kamid ahaa waxaanu ka wada hadalay arrimaha doorashada iyo arrimaha nabadgelyada waxaan u dhaafayaa sida ay yiraahdeen laakiin anagoo tixgelinayna imaatinkooda oo dad xisbi xisaab gurigoodii timaayihiin waxaan idin la socodsiinayaa wixii inaydaan shubin imika saaka fasaxa markaanu galayna waa ogeydeen saxaafada odayaashu arrinkay u socdeena ee doorashada ahaana waxaanu ka ballanay markaanu fasaxa ka soo noqon Alliance Media Channel AMC moogtiina dunyadu aqoon bay isdheerto aadmigu halkuu tagay aayar waxay ku gaadheen internetka weeye hab tilmaaman oo adag oo ammaana oo sugan AdSense haday tahay iyo YouTube idaylkii oo akoon aad leedahay adil lagugu xidhayana AMC ayaa helay Alliance Media Channel AMC oo ah nidaam casri ah oo si fudud aad ugu heli karto lacagta aad ka shaqaysato hanaanka online-ka ayaa ku diyaar haddaba ha mogaanin oo kala xidhiidh telefoonada iyo tilmaamaha shaashada kaaga muuqanaya ha mogaanin AMC